ماشي اللي قرأوا أرداد إن امتحان كي دياريان وقت امتحان كي لجو امتحان كي دياريان أول ربي عين بحس ما مكسي لا شيء ستوب خلاص إيك بيحي وايد امتحان كي دم حلو صدق مكسي لا مالي أنا هني عسري أيام سعنا والبحنا إيفونا وأنا وحنا دونا محيته وهكذا كنا دو بوتو جنال سبسكرايب لايك اند شير كومنتيين waa inoo muhiim الله بركة داود المادة سلامتين من الأدونك كجوكتين وأنا مغعي بمتو واحد داونيسين بتو channel waxaan idin leeyahay kusoo dhawaad channelku waa channelkiina mar walba si xishmad leh kusoo dhawaada adaa ku sabta subscribe noo saar asxaabtiin hore kamid tahay welcome kusoo dhawaad suurtagal ma tahay in ku dhawaad 8,000 oo arday oo ka soo jeeda hal gobol ee afka ciidda gashtaan ay ku dhacaan natiijada imtixaanaadka ay galeen suurtagal sama tahay in afarta kaalin ee ugu horeysay ee kala sareynta iskuulada oo hantiya hal gobol maxaase ka jira dacaayada lagu baafinayo baraha bulshada ee sheegaysa in ardayda gobolka Banaadir ay ku mashquuleen social media yaday oo ma santahay okay maanta waxaan idin wada waxay tahay video kadib shaacinta natiijada imtixaanaadka dugsiga sare ee dalka waxaa jirtay warar dacaayad oo sheegaya in tirada badan ee ardayda gobolka Banaadir ay ku dhacday imtixaanaadkii laga qaaday inay sababsadeen isticmaalka social media marwal babwan dulduula hooyo muqdishaan ku dageeya jawi degan ayaan dareema iga daadan maag haytiinduba dalkayga hooyo اسمعوا يا شرم بوي فنانك سوماليات oo xabsil dhigay sabab ma xabsil loo dhigay maxay tahay ardaydii la rabay imtixaanaadkii oo dugsiga sare ay ku jireen dhamaantood imtixaanaad dawlad oo laga qaaday kulli way wada dhexreer muqdisho dhan boqolkiiba 80 kulli 00 ala keenay sabab maxaa u wacan sharmboy u wacan Allah fanaanka sharmboy u wacan Allah sabab se u wacan kara maxay tahay meeshii laga rabay ardayda inay imtixaankii diyaariyaan waqti imtixaankii la joogo imtixaanka inay diyaariyaan oo la rabay ayaan maxay sameeyay mugsi saqdaxe ba soo xilligii oo qof walba oo waqti oo haysto waqtigiisa oo ka faa'iideysanay riyadiisa oo rumeynay ugu dambeyntii sidan ayaa dhacday ardayda badi boqolkiiba 80 way dhaceen waxaan u soo aanayna lahay sharmaboy waayo asiga hees u soo qaaday kiidan wuxuu ku mashquuliyay tiktok ayuu ku mashquuliyay ayaa lahay sabab marwal babwan dulduula hooyo muqdishaan ku dageeya jawi degan ayaan dareema iga daadan maag haytiinduba dalkayga hooyo ku talxiis dalka hore dami hey gudaha daaqada xina fur soo deg dalka hore dami hey gudaha daruriya daaqada xina fur soo deg markeelo meeshaad istaag bajaajlaha bartiisa ku xili xabad wado ama xeebta u soco ha iga gale xoogaa iyo toor haddii kale bumbu xaqiiqda rasmiga ah oo ka dambeysay ardayda inay imtixaanaadka dhacaan iyo natiijada imtixaanaadka wuxuu yahay kulli waxaan rabaa inaan ila wadaagtaan waa kana ayadoo faahfaahsan sababtii wixii sidii ku dhacay waa kana ila daawada imtixaanka sidii oo ahay عاشق يا الحمرانا
مقام ريال حمرانا وبالمنقى ريال حمرانا عالم كفانا ريال حمرانا suurtagal sama tahay in afarta kaalin ee ugu horeysay ee kala sarreynta iskuulada oo hantiya hal gobol maxaase ka jira dacaayada lagu baafinayo baraha bulshada ee sheegaysa in ardayda gobolka Banaadir ay ku mashquuleen social media marun baa in la qabyaaladeeyay lana siyaasadeeyay sixitaanka imtixaanaadka dugsiga sare ee dalka sida ay u dhacday shaacinta natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee dhammaan dugsiyada sare ee Soomaaliya ma ahan wax lagu farxo suurtagal ma tahay in ku dhawaad 8,000 oo arday oo ka soo jeeda hal gobol ee afka ciidda gashtaan ay ku dhacaan natiijada imtixaanaadka ay galeen saacado ka hor lagu dhawaaqay natiijada ardayda shahaadada ee dhammaan gobolada dalka kuwooda aqbalay imtixaanaadka dawliga ee hoostaga wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxaa mar qura la maqlay dhawaaq aan wanaagsaneyn dhagaha waalidiinta ardaydooda ay dhigtaan iskuulada magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ku dhawaad 8,000 oo arday ka soo jeeda gobolka Banaadir ay ku dhaceen imtixaanaadkii shahaadiga ah ee dawladdu ay qaaday marka laga yimaado dooda ku saabsan sababta tireenta leeg oo arday hal gobol ka soo jeeda imtixaanka ugu dhacaan waxaa dhanka kale shaki weyn la geliyay shaxda kala sarreynta dhammaan iskuulada dalka mar kale ayaa meesha laga waayay gobolka Banaadir halka gada uu qaatay afarta kaalin ugu horeysa taas oo noqotay wax la yaabo kadib shaacinta natiijada imtixaanaadka dugsiga sare ee dalka waxaa jirtay warada caayad oo sheegaya in tirada badan ee ardayda gobolka Banaadir ee ku dhacday imtixaanaadkii laga qaaday inay sababsadeen isticmaalka social media marwal babwan dulduula hooyo muqdishaan ku dageeya jawi degan ayaan dareema iga daadan maag haytiinduba dalkayga hooyaan okay marka aydo saas ay tahay dadkii dhamaan kulli waxay ka bixi waayeen she stop class ay ka bixi waayeen imtixaankii dhan maxaa loo soo dhigay markii dha loo soo dhigay alashaan ayaga sababsadeen ayaga sabaystay alashaan imtixaanaadkii qof walba horta waa qalad horta in loo aanay fanaankaas oo la dhaho imtixaanaadka arday inay dhaxan Sharmboy ka dambe Sharmboy ay soo waayo ninkaas waa nin fanaan shakhsiyad oo xur ah noloshiisa oo mar walba oo rabo inuu horumar oo gaarsiiyo horumarkiisa oo ka taliyo laazim ardayda iyo Sharmboy isku ma xirno waa Sharmboy waa nin fanaan qof kale tan waa arday Sharmboy isku xirno aniga raayaantini isku ma xirno waa ninka horumarkiisa oo fiirnay ardaydan qofkii inuu wax barasho inuu wax barto mala horta yaabkiisa bakaweyn horta wax kala sheegay mala yaabkiisa uu ka weyn yahay sababtoo ah macnaha dadkii dhana waxay wada naqdeen aad muusigiisa wada naqdeen dadkii dhan reer magaalada wada naqdeen hadda ma jiro qof toos oo wax barasho oo qalbigiisa ku jirto inuu wax barto oo raw boqolkiiba waxa la helaa adiga 10 mise boqolkiiba 20 laakiin dadka kale badi niidooda waxa ku jirto kulli alaabta anaga dhaqa ku jirto maande wax barasho eegan uma ahan Sharmboy dadkan wuu kalkicay ciidamada rooshka ko shishka oo keenay abiis kashka لقد دلالة واي دنتي سوتها بس لكن أردادي أسي إسكو شخص ما أهن أردادي دن وحالة لا Sharmboy كدب إذا إبتحاك كنعال واي وحوكين يس لا مرك واحد والب مرك سيدان أيو سعودان امتحاناتك أردادي دن كل قفل بسيل رو من خنين بخلكي بس ديتن ويدعن أردادي واي قفل بهم يسوحوا هاي امتحانات كان إنه كقوليستو مستقبل كيسو أيو هاي لكن ساديد بقف دتك هرتا ما شاء الله هرت وقت كان عصري يوم وعصري عصب واي وعصري كان دتك دون غير مجال أي وذا نخلين هذا خاصة غير تيك توك أي وذا نخلين تيك توك يا هذا دتك ونسي بس هذه نوي مركز تيك توك وطنين إيفون لو قضاي أو والله إسكباشا الوقت كان خيال الله أو معناها إسكراح يسوالف كيس لا برش كاس من السوق وما يقرأوا إنه واحد برتو وحال ربع إن حوق السارو ومر والبوح والبحبرشيديس بس لو دال waxa mobile iyo wax kale wax noloshiis mashquulinayo dhan oo kali in laga ilaaliyo waayo anaga Soomaaliya aan casriga ayaan soconaa waa ilbaxna iPhone wadana waxaan doonaa maxay tahay waa kana doonaa fiir marka hoosheen saan way wax barash isaan miskiin karna marka ilaahay laga cabsay maya maxaa ku toosinaa Sharmboy la garabkiisna qiinamo anaga maxaa dheena shii kalaas istaan leedinamo anaga arka saxaabay aad iyo aad ma sidii daawashada video aad daawateen kulli waa kana arag sida ay u dhicisa Sharmboy miskiinka xabsay iyo xalay budii waxaan u soo bixi laay ardayda sababtoo ardayda la rooyay in imtixaanaadka ay baasaan waxay ku baaseen si Sharmboy kulli warqada dhab waxay ku qoray Sharmboy ay ku qoray marka
yaabka asaab iska jir dunidan sideeda bayada iska yaaban iska mucjis badan wax kale oo la sheegay wallahi kala mujire kulay khaatimada ilaahay loo toosay la faraagir waa fanaad dadaalay ardayda asir isku shaqo baara dhigi karaabo okay aad iyo aad ma sata daawashada video aad daawatay maani waa buto waxaan insha Allah isku xiisno kulan dambe xiiso. Assalaamu alaykum warahmatullahi